musharax xildhibaan Cabdirasaaq Cabdilaahi waa bari ku tembe oo u sharaxan xubin kamid ah baarlamaanka aqalka hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Dhaxar ee xarunta gobolka Highland ee Puntland. Soo dhaweynta musharaxa oo si hab maamuus loo dhacday ayaa waxaa ka qayb galay isimada dhaqanka gobolka Highland kuwaas oo ugu horeeyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilaahi Cartan, siyaasiyiin, saraakiisha ciidamada, ururada haweenka, kuwa dhalinyarada iyo dadweyne iskaga kala yimid xaafadaha magaalada Dhaxar kuwaas oo musharaxa kaga hortagay meel 1 kiiloomitir u jirta magaalada. Soo dhaweynta kadib musharaxa ayaa waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Dhaxar halkaas oo lagu sameeyay munaasabad soo dhaweyna waxaana ugu horeyntii munaasabadaas ka hadlay Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilaahi Cartan isagoona halkaas ka soo jeediyay hadallo soo dhaweyn u badan. dartiis iyagana waa uga cudur daaraya waxaan leeyahay Cabdirasaaq Cabdilaahi ku tembe waa bari waad arkaysaa dadweynaha degmada Dhaxar si wanaagsan baa lagu soo dhaweeyay horeyna runtii sida iyo si lamid ah waad kala kulmi jirtay. qaar kamid ah waxgaradkii iyo odayaashii soo dhaweeyay musharaxa ayaa iyagana goobta hadal ka soo jeediyay. marka waxaan ku leeyahay musharax tafadal hamadaada Allah ku qaado si wanaagsan wax u qabo haddii aad guulaysato haddaadan guulaysan waa guul oo intaas ma hadday ku soo ogtay intaas hadday maalin soo ogtaan anigu madaxweynaha bay soo qaadan lahaa. marka xiga waxaan u malaynayaa musharaxa hadalkiisa waynu maqlaynay musharaxa waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay waa magaaladaadii iyo dadkaagii iyo dalkaagii waa ku soo dhaweynaynaa. maanta waxaan u malaynayaa waa soo dhaweyn reer Dhaxareedna waxay dhaqan u leeyihiin inay soo dhaweeyaan. waxaanu leenahay soo dhawow waxa uu timid dalkaagii iyo dadkaagii si fiidirana waa ku soo dhaweynaynaa waxaanu ku leenahay ku soo dhawow war cidii wax qaban kartaa hal la siiyo baan leenahay ka gabdha ahaan anagu amar uma haysano anagu sababtay tahay anagu waa dulmanayaal baanu nahayo cidina amarkayaga qaadan maysa laakiin waxaanu leenahay cidda wax inoo tari kartaa ama masiirka ummadda wax ka bedeli kartaa aan siisano oo go'aan hayna kaga baxdo. musharax xildhibaan Cabdirasaaq Cabdilaahi waa bari oo intaasi kadib madasha soo dhaweynta ka hadlay ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntii maanta loogu sameeyay magaalada Dhaxar ee xarunta gobolka Highland waxa uuna sheegay in haddii loo doorto xilkan uu wax badan ka qaban doono arrimaha horumarka gobolka. si aan uga warqabo waxa deegaanku ku sugan yahay si aan uga warqabo baahida dadku ay qabaan si aan ugu dhago nuglaado talooyinka iyo tusaalooyinka ka soo baxaya deegaanka la qofku inuu xamar iska tago iska maqnaado wax loo fadhiyo ma insha Allah iga sugu miisan maslaxada guud in laga taliyo deegaanadana waa deegaano iska dhib badan dhibaatooyinku iska badan yihiin hasa ahaatee waxa weeye loo baahan yahay markasta inuu cohesion u jiro. moogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobaylo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo lacag kugu jirto. haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtal waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtal uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333